Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu. Walaalahey dhammaantiin meel kasta oo ku sugan tihiin subax wanaagsan. Waalid kasta wuxuu jecel yahay gabadhiisii inay guursato nin wanaagsan. Waalid kasta wuxuu jecel yahay gabadhiisii inuu meel wanaagsan ku asturo. Waxay ahayd gabar asturan, waxayna jecleed inay soo ugaadha. Maalimaha ka mid ah iyadoo duurka joogto ayaa ka dhuntay wadadii ay ku imaaday. Runtii aad bay u murugootay. Waxay isku dayday meeshii ay ka imaaday inay ku laabato, balse way u noqon waysay. Waqti dambe waxay aragtay nin dhalinyaro oo duurka joogo. Runtii way u tagtay, waxayna ka codsatay inuu tuso wadada, balse isaga wuxuu ugu jawaabay waa gelin damba. Duurkan waxaa ku nool xayawaano dadka cunaan. Marka waxaan kaa codsan lahaa inaa caaw meeshan aad barido si waaga markuu bariyo aan guriga kuu geeyo. Runtii gabadhi aad bay u naxday, balse way iska dulqaadatay wayna ogolaatay. Habeenkii markii la gaaray, gabadhii wuxuu keenay guri ayuu keenay. Guriga markuu keenay, runtii gabadhi aad bay u cabsanaysay. Waxayna ku fikirtay wiil dhalinyaro iyo gabar dhalinyaro ah haddii guriga iskugu imaadaan waxaa saddexeeya shaytaan ayaa saddexeeya. Runtii iyadoo aad u cabsanayso oo is ilaalinayso ayay waxay aragtay arrimo ay la yaabtay ayay wiilka ku aragtay. Saqda dhexe markii la gaaray, wiilka wuxuu shiday dab ayuu shiday, wuxuuna bilaabay inuu farihiisa u gubo. Runtii farihiisa markuu gubayay gabadha aad bay ula yaabtay. Waxayna dhahday muxuu farihiisa u gubayaa. Waagii markuu bariyay, wiilkii gabadhi ayuu soo waday, wuxuu keenay guriga ayuu keenay. Gabadhi waxay bilowday inay aabaheed ugu sheekayso qisadii ay la kulantay. Runtii odaygii wuu aamini waayay, wuxuuna go'aansaday hadalka gabadhiisii ay sheegayso inuu soo hubiyo. Wuxuu aaday duurka ayuu aaday, wuxuuna marti u noqday wiilkii gabadhiisii badbaadiyay. Markuu marti u noqday, odaygii iyo wiilkii waxay bilaabeen inay sheekaystaan. Wiilkii wuxuu bilaabay inuu uga sheekeeyo sheekadii xali soo martay, sheekadii gabadhii oo la bariday qolkan. Wuxuuna uga sheekeeyay inuu farihiisii uu gubayay. Runtii odaygii wuu weydiiyay maxaa faraha u gubaysay ayuu ku dhahay. Wuxuu dhahay habeenkii saqda dhexe markii la gaaray waxaa ii imaaday shaytaan ayaa ii imaaday. Wuxuuna ii amray shaytaanka inaan gabadhan ficil xun ku sameeyo. Marka ka bacdi aniga waxaan bilaabay inaan faraheydii aan gubo si shaytaankan qalbiga ku jiro uu i amray xumaantan aan ku dhaca sidaan isku iloobsin lahaa. Runtii odaygii aad buu la tacajabay. Odaygii gacanta ayuu soo qabtay wiilka, wuxuu keenay guriga ayuu keenay, wuxuuna ku daray gabadhiisa ayuu ku daray. Runtii qisadan waxay leedahay xikmad cajiib badan. Waalid kastoo adduunka ku nool wuxuu jecel yahay gabadhiisa inay nin wanaagsan ee guursato. Waayo Soomaalida ayaa ku mamahday gabadha mise laga guursado mise qabriga kaga jirto. Taasi waxay tusinaysaa gabadha inay dahab ay tahay, inay dhul ay tahay. Haddii mar ay jabto ma la kabi karo.